ninkani waa ninka ugu taajirsan dunida marka loo eego lacagta kiribtada. magaciisu waa Zizi. wuxuu sameeyay ama haystaa lacag gaaraysa 17 bilyan oo dollar, laakiin hooyadii wali waxay ugu yeedhaa doqon ama naxas. haddaba aan kula wadaago sheekada cajiibka ah ninkan. Zizi wuxuu iska ahaa nin iska caadi ah, wuxuuna ku dhashay China, wuxuuna ku soo koray oo noloshiisa badanaa ku soo qaatay magaalada Vancouver ee waddanka Canada. hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka. ninkan sheekadiisa cajiibka ah ee uu ku noqday bilyaneerka waxay ka soo bilaabatay miiska lagu ciyaaro turubka sanadku markuu ahaa 2013. wuxuu ahaa mid ciyaaro badanaa turubka. maalin isagoo asxaabtiisa la ciyaaraya, mid ka mid ah ayaa wuxuu weydiiyey su'aal taasoo ahayd, weli ma maqashay Bitcoin? laakiin Zizi waxba kama garanayn oo wuxuu u bogay magaca. dib wuxuu u weydiiyey asxaabtiisa, waxayna u sheegeen inay tahay lacag internetka gudihiisa ka shaqaysa. saaxiibadiisa waxay u arkeen lacagta Bitcoin iska baashaal oo aan la isku halayn karin, laakiin isagu wuxuu rabay inuu fahmo Bitcoin. wuxuu soo dejistay sharaxaad si buuxda u faahfaahinaysa waxa laga wado Bitcoin, kadibna waa uu daabacay wuxuuna akhriyay erey walba oo ku yaalay waraaqdaasi sharaxaadda, waxayna ka koobnayd 9 page. kadib waxa u soo baxday in lacagtani ay tahay lacagta mustaqbalka ee dunida. kalsoonida uu ku qabay Bitcoin waxay ahayd mid aad u weyn. wuxuu iibiyey gurigiisa oo dhan, wuxuuna Bitcoin ku maalgashtay lacag dhan 1 milyan oo dollar. sidoo kale waxa uu ka tegay shaqadiisa. saaxiibadiisana waxay ku tilmaameen inuu yahay mid aan caadi ahayn ama fiyoobayn, maadaama uu hantidiisa badanaa ku maalgeliyey Bitcoin. sidaasna wuxuu ku noqday mid guri la'aan ah iyo shaqo la'aanba. nasiib darro 2 bilood kadib waxaa hoos u dhacay Bitcointii, weliba hoos u dhac aad u weyn oo gaaraya 70%, wuxuuna sidaasi ku khasaaray lacag gaaraysa 700 oo kun oo dollar. sidaa daraaddeed hooyadiis waxay u sheegtay inuu yahay mid doqon ah ama nacas ah, maadaama uu khasaariyey lacag aad u fara badan. laakiin isagu wuxuu weli aaminsan yahay inay kiribtadu tahay lacagta mustaqbalka ee dunida. wuxuu joojiyey ciyaarista turubka, wuxuuna ka dheeraaday asxaabtiisa 3 subaxnimo ilaa saqda dhexe 7 maalmood ee isbuuca muddo 5 sano gudaheeda oo bilaa nasasho ah. waxa uu dhisayay blockchain technology, kaasoo ah crypto exchange oo lagu kala bedelanayo lacagaha kiribtada, laguna magacaabo Binance, halkaasoo ay dadku ku iibiyaan kana iibsadaan kiribtada midba midka kale. wuxuu noqday mashruucaasi mid hawada galay, guulaystayna 5 sano gudaheed. Binance waxay noqotay meesha ugu weyn ee lagu kala bedesho kiribtada ee dunida. isticmaalayaasha Binance waxay gaareen 100 milyan oo isticmaalayaal ah ama qof. Binance waxay noqotay shirkad weyn, waana mid ka dhigtay Zizi 5 sano gudaheeda ninka ugu taajirsan kiribtada, kaasoo dhaqaalihiisu gaarayo 17 bilyan oo dollar. Zizi ma ahan mid xoogga saara lacagta, taas waxa ku cadaynaysa dharka uu qaato. sidoo kale ma lahan wax gaari ah, wuxuuna qorsheynayaa inuu lacag badan u bixiyo sadaqa ahaan. sheekadan waxay ku tusinaysaa awoodda aaminaadda ama kalsoonida waxa rabtid inaad qabatid. haddii rabtid inaad fulisid mashruuc, waa inaad ku qabtaa kalsooni ama aaminaad buuxda, sida uu aaminaad ugu qabay Zizi Crypto.